xalay waxaa dhacay wax aan horey loo arag abaalmarin baa la bixiyay balse su-aashu waxay tahay yay u shaqaynayeen yay matalayeen ma sharaf baa mise waa ceeb qarsoon ma guul baa mise waa burbur dhaqan hal su-aal oo keliya soomaalida meel nuucee ah ayay kaga tageen majalada East Africa Awards ayaa sanadkii labaad si rasmi ah u qabatay munaasabad heer sare ah oo lagu abaalmarinayay shirkadaha iyo shakhsiyaadka ugu waxqabadka wanaagsan sanadka 2025 kusoo dhawaada channelka halkan waxaan ku falanqeynaa xaqiiqooyin qarsoon wararka xasaasiga ah iyo waxyaabaha aan laga hadlin maanta waxaan idin hayaa falaqeyn qoto dheer oo ku saabsan dhacdo xalay ka dhacday Nairobi dhacdo dad badan ka yaabisay qaar kalena ka aamusay laakiin anigu waan ka hadli doonaa ilaa dhammaadka daawo runta ayaad ogaan doontaa qaybta koowaad su-aasha ugu weyn daawade bal isweydii abaalmarinta la bixiyay maxay ku mutaysteen dadka la guddoonsiiyey ma wax qaran ayay qabteen ma diinteena ayay difaaceen mise waa wax kale oo qarsoon dadka dalka iyo diinta marka aad sawirka eegto maxaa maskaxdaada ku soo dhacaya daawada qaybta labaad sawirka ay dunida qaadanayso ka fikir hal ilbiriqsi daawade qof aan Soomaali ahayn oo arka sawiradan muxuu naga fahmi doonaa ma ummad sharaf leh mise ummad jihadeeda lumisay daawade sawir kaliya ayaa mararka qaar ka hadla wax ka badan kun eray qaybta saddexaad dooda ugu adag su'aal kale oo culus kuwa meesha joogay adiga xagee baad ku xisaabin lahayd marag baa mise dumar mise wax kale tani ma ahaay waa su'aal ka dhalatay xaqiiqada la arkay qaybta afraad arinta ugu xanuunka badan laakiin waxa ka sii daran waxaas oo dhan waxaa joogay dad Soomaali ah madax iyo dad bulsho oo magac ku leh xafladda East Africa Somali Awards waxaan ku abaalmarinay shirkado gaar ah 36 shirkadood waxaan aad ugu faraxsanahay isla markaana ma celinayaa our chief guest oo caawa ahaa wasiirka caafimaadka dawladda Kenya honorable Aadan Ducaale waxaan aad ugu mahadcelinayaa dhammaan mas'uuliyiinta ka soo qayb gashay ee ka yimid dawladda Soomaaliya oo ugu horeeyo ambassador Jibril Ibrahim Abdulla waxaan aad iyo aad ugu hambaleynayaa dhammaan shirkadaha guuleystay sanadkan guusha sanadkan waxay qayb ka tahay in lagu dhiirigeliyo Soomaalida degan East Africa halkii laga filayay in ay hanuuniyaan iyada qayb ka noqday waxa dad badan ka caroodeen qaybta shanaad baaritaanka markii aan baaritaan sameeyay waxaan ogaaday waxyaab leh inta badan dhalinyarada halkaas joogtay ma aha dad qoys leh ma aha dad xaasle ah ama la qabo su'aal maxaa loo doortay dadkaas oo kaliya maxaa ka qarsoon qaybta lixaad farqiga u dhaxeeya dhab iyo show waxaad aragtaa waa dhoolatus attention raadis laakiin waxa ka dambeeya waa wax ka weyn intaas maanta waxay u arkaan guul laakiin biri maxaa dhici doona guunaanad allahayow haddii ay hanuun u qoran tahay hanuuni dhalinyaradaas haddii kale ummadda ka badbaadi aamiin adigu fikirkaaga hoos ku qor ma taageersan tahay mise waad ka soo horjeedaa munaasabadan oo lagu qabtay magaalada Nairobi ayaa ahayd mid si weyn loo soo agaasimay waxaana ka qayb galay mas'uuliyiin kala duwan oo ka kala socday dawladaha Soomaaliya iyo Kenya ganacsato iyo marti sharaf kale mas'uuliyiinta ka qayb galay waxaa ka mid ah wasiirka caafimaadka Kenya Aadan Barre Ducaale safiirka dawladda Soomaaliya ee Kenya Danjire Jibril Ibrahim Abdulle iyo gafanaha Gaarisa Nadiif Jaamac iyo mas'uuliyiin kale intii ay socotay munaasabada shirkado ganacsi oo badan iyo shakhsiyaad ayaa lagu abaalmariyay kaalintoodii horumarineed ay ka qaateen dhaqaalaha iyo adeegyada bulshada taasoo muujinaysa kobaca iyo isbeddelka ka socda gobolka gudoomiyaha majalada East Africa Awards Mudane Ridwan oo ka hadlay munaasabada ayaa sheegay in abaalmarintan ay tahay mid lagu dhiirigelinayo hal abuurka tayada shaqo iyo horumarka ganacsi ee bariga Afrika wuxuu sidoo kale u mahadceliyay dhammaan martida iyo hay'adaha ka qayb qaatay qabsoomidda munaasabadan muhiimka ah Rahmaan Rahiim waxaan aad ugu faraxsanahay in sanadkii labaad oo noo soo gabagabay xafladda East Africa Somali Awards waxaan ku abaalmarinay shirkado gaar ah 36 shirkadood waxaan aad ugu faraxsanahay isla markaana ma celinayaa our chief guest oo caawa ahaa wasiirka caafimaadka dawladda Kenya honorable Aadan Ducaale waxaan aad ugu mahadcelinayaa dhammaan mas'uuliyiinta ka soo qayb gashay ee ka yimid dawladda Soomaaliya oo ugu horeeyo ambassador Jibril Ibrahim Abdulla waxaan aad iyo aad ugu hambaleynayaa dhammaan shirkadaha guuleystay sanadkan guusha sanadkan waxay qayb ka tahay in lagu dhiirigeliyo Soomaalida degan East Africa
waxaa lagu abaalmariyay shirkadaha lagu abaalmariyay waxay ka kala yimaadeen dhammaan wadamada East Africa taasoo markaa tusaysa bulshada Soomaaliyeed meel walba joogaan ifaalo wanaagsan iyo Soomaali meel walba ka duwan East Africa inay kaalin weyn ku leeyihiin waxaan aad iyo aad ugu hambaleynayaa guuleystayaasha waxaa ka mid ah TV-ga Shabeelle ku guuleystay TV-ga wanaagsan سيد علي عبد محمد شبل TV مقالة نيروبي.